فالأمر كإلهي يا يقال على كذا عاد حلنتين عدة سميسين متقال عدة ألفتين عدي شيء كتبت وكان على كذا حلنتين وحا ألفي هوضو حسن علي يوسف الله يرد علي وقال مقعد هاي الأول هذا اللي هذا هذا حسن علي يوسف بقول شرب هاد علينا يا بهد وهلكوا أول يا آخر بكذا بهاي. حسين وضن أما تاريخ التلمام إسا مؤلفكي أما مهندسكي اختراعي إنه أستان إنه قديقه أما بعد سوع إنه قديقه إنه صومالي كمان بين عالك إنه عالك بلو جاه إنه بعد سوع كديقنا أستانتا درويش كو إنه قارو لين هاي وحالي في قفر خاتمها وقبرها ومقعد اللي هذا الروضة حسن على يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحربا إلى كهرباء أرين يرواد مهم وحربا ذكر الخاتمة مركز وايد شوغان إلى جارسيو أرين تاس أنت بدن marka ay timaado dadku inay dhigtaan munaasabadaha xafladda sanad guurida khasmaysteeda Soomaaliya oo dunida dacaladeeda oo dhan laga xuso bisha koowaad bartamaheeda ilaa 20 keer inta u dhaxaysa hadda sida dadku duruufta ugu saamaxdo ay u dhigtaan iyo waqtiyadooda iyaga ku xisaabtanaya waxaan rabaa inaan khalad yar oo muuqda ka saxo khaladkaasi wuxuu yahay munaasabado ama xaflado sanad guurida saddexaad khasmaysteeda Soomaaliya oo aanu daawanayno oo joogno gudaha dalka waxaan ka arkaynay astaamo aan ahayn kuwii la isla qaatay mana aha astaamuhu kuwa qofkii doonaba intuu alifo uu khaatimo ku taageerayo waa jirtaa waa xaqiiq in geedka bardaha ku yaala caasimadda ku meel gaarka Taleex in geedka bardaha lagu yagleelay ama lagu dhisay way jirtaa laakiin astaamaha aynu qaadanay ma ahayn geedka bardaha waxaan rabaa marka koowaad inaan xuso waa kee calanka khaasiyada state of Somalia state han u leeyihiin calankaasi waa kan korkayga ka muuqda waa calanka Soomaaliya oo buluug ah oo xiddigta calaashan geestaa leh oo labada dhinac lagaga daray cadaankaas uu ka muuqdo darwiishkaas faraskiisa saaran astaanta ama calanka rasmiga ah ee baadi socdo ah dadka reer Khaatumo waa inta calanka kale ummadda Soomaaliyeed baa inaga la dhaxeeya waxa sidoo kale uu ku cad yahay dastuurka sida ku meel gaarka loo ansixiyay Khaatumo Soomaaliya qaybta koowaad qodobkeeda saddexaad calanka dowlad goboleedka Khaatumo waa calanka Soomaaliya oo labada dhinac ee dambe lagaga daray saddex gees cad oo uu ku sawiran yahay darwiish faraskiisii ku jooga waxa xusid mudan ama taariikhda tilmaamaysa muallifkii ama mahindskii iftiraacay inuu astaan inooga dhigo ama baadi sooc inooga dhigo inuu Soomaali kameen bixin calankeenu calanka buluug ah inaynu baadi sooc ka dhigano astaanta darwiishka aynu gaar u leenahay waxa la fi qofre Khaatumo oo gabadh ah magaceeda la yiraahdo Rooda Xasan Cali Yuusuf oo qurba joog ah oo aan filayo arriga Mareykanka inay ku nooshahay qof ahaan ma garanayo laakiin aan ku amaanayo oo aan ku mahadinayo dadka reer Khaatumo waxaan leeyahay xusuusnaada taariikhdana halkaas ay ku gashay halgankeedana qaybtii ugu muhiimsanayd waa la qaatay saas wara ku hirgalay marka waxaan codsanayaa qoliyaha sawirka ka bedelan munaasabadaheena ku dhajinaya ha bedeleen kan ka dhigeen qoliyaha geedaha waaweyn soo sawiranaya ha bedeleen han noqdeen waxa aynu ka midaysanahay qof waliba wuxuu doono yaanu soo qaadanay wax jiraya wax jiri doona wax jiilasha damana dhaxli doona hadii Allah wada ogolaado inta rabbi hadalkan aanada waa inta waxaan idinku baraarujinayaa meel kasta aad joogtaan sanad wanaagsan waynu halgamaynay waynu dadaalaynay hawl kama daalooyino wali waa hogadii waa ku dhex jirnaa